بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا solarportal.com iyo solar live broadcasting عاوة أريمر دعي أيان اسكودينا إن شاء الله إن أنصحنه وحن مرلبات عن invitation عن أصميني إن ونقلق يبقى رسائل كجبل لنقادني إبراهيم بافو أو كسوغان ودن كأستراليا مقالة ملبون سي arrimihii aamina dhool iyo waxyaabihii ay ka hadashay fanaanada weyn ee farxiye kabayare loo saxo marka waa daawateen waraysigii hore ee deeq darajo oo ku sugan Minnesota waxaana isla marka aan soo geliyay wallkayga dhanka Facebook waraysigii uu soo siiyay maanta solarportal.com Abukar Mahdi oo jawaabtiisa maamadana way ku xigtaa insha Allah marka hadda waxaan doonayaa in Ibrahim Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee wadanka Australia oo isna la yiri lacag $8,000 wadanka Australia iyo gacanta ku haya inaan weydiiyo iyo arimahana sidii lagu soo afjar lahaa tan kale waxaan isku dayay inaan maaragtay aan la xiriiro farxiye kabayare laakiin wali ima soo jawaabin laakiin London ay joogtaa waxaan filayaa haday aragto message-keeda insha Allah in maaragtay ay isoo jawaabi doonto iminkana waxaan invitation u fidinayaa oo aan leeyahay in Bafo oo ka tirsan shaqaalaha University TV waqti badan aan la shaqeynay tabcan oo ku sugan wadanka Australia Bafo ugu horeyn waxaan joognaa maalin Arbaca ah idinka agtina waa imisadii hadda Abdulnasir anaga hadda waxaanu joognaa maalin Khamiis ah waana wadi iyo dhowr iyo 10 daqiiqo ma sha Allah ugu horeyn waa ku salaamaya arintan ku soo wacay salaam kuma soo wacin Ibrahim Bafo rag saaxiibo isnaqaano waqti badan isla shaqeeyay Universal meel walba isku yaqaana laakiin waxaan rabnay arimo ayaa jira inaan saxno gabar walaasheenana waxay ku xanuunsan tahay magaalada London Amina Dhool gacan la siiyo wax walba la soo afjaro arimaha la dhameeyo waxaan rabaa adiga Bafo ahaan oo ku sugan Australia magaalada Melbourne goormay arintan ku soo gaartay oo bilowday Nasra waa maasan tahay subax wanaagsan dhankayga reer Australia habeen wanaagsan reer UK galab wanaagsan reer Mareykan waa ku faraxsanahay runtii in aan markale adigu aan wada hadalno waxaanuna rag meel ka wada shaqeeyay muddo saaxiibana ah arinta Amina Dhool markii Abukar Mahdi ama telefishinka Universal uu soo bandhigay ayaynu daawanay oo aanu dhageysanay aniga ma ana ogeyn xanuunkeeda laakiin meesha aan ka ogaaday waxay ahayd telefishinka Universal markii Abukar Mahdi uu u tagay oo isbitaalka ugu tagay oo laga soo duubay ayaynu daawanay dadka daawadayaasha ayaan ka mid ahaa oo Amina xanuunkeeda meesha kala socday Amina magaalada London waa wada deganeen muddo anigu halkaas ayaan deganaa sidaad ogeyd dadka magaaladana si fiican ayaan isku naqaanay dhanka kalena Amina waxaanu bahwadaag ku nahay mikrofoonka oo qofba si uu isticmaalo wariyaan ahay iyaduna fanaanad bay ahayd tan kale xanuunkeeda October dhexdeeda ayaan anigu maqlay waliba waxa la ii xilsaaray oo la yiri dadka Australia jooga adiga ayaa loo qaabilsan wixii tabaruc ah ay soo dhiibaan in walaasheena aad soo gaarsiiso Aamino runtii marka saasa ku soo gashay markii ugu horeysay saasa ku soo gashay arintan Soomaa markii la ii soo bandhigay oo Abukar Mahdi ugu yiri iga codsaday waan ka aqbalay waana markii ugu horeysay runtii arimaha tabaruca oo aan aqbalo inaan ka qayb qaato anigu waxaan ahaa qof soo tabiya dadka dhibaataysan ee meelaha ay ku jiraan laakiin shaqo kuma lahayn inaan lacag u aruuriyo dad kale ay u taalaa in ay wax gaarsiiyaan anigu waa soo bandhigi jiray sida la socoto Cabdiraasir oo labada gaalka xerada Faras ee Yemen ku taalay shaqadii ugu horeysay oo tagay oo dadka ku dhibaataysan soo bandhigay ilaa lacag $1,000 gaaraysana waa loo aruuriyay ma aqaan sidii u gaartay niyo aad baan isaga ilaalin jiray arimaha samafalka inaan ka qayb qaato laakiin hadda adi ahaan Bafo ahaan waa lagu xil saaray waxaana isku dayday oo samaysay abaabul in gabadhan loo ordo dad la isugu keeno inkastoo xilli adag ay ku soo aaday adaa noo sheegi doono oo Soomaali masiibo ay ka dhacday bal sida u abaabushay iyo dadka isu keentay iyo lacagaha heshay bal noo sheeg hadda xilligan runtii Abukar gabadha masiibadii xamar ka dhacday way ka horeysay arinteeda markii Amina Dhool ay soo dhacday oo la yiri
keliya ida fadhiisteen oo lacag $100,000 lacag $100,000 lacag aad u badan ma aha runtii lacag aad u yar weeye markii la fiiriyo dhinac markii laga eego lacag laga qaadi karay reer Ingiriis bay ahayd ma ahayn in Australia iyo America u gudubto ma ahayn laakiin wax aruurintuna waa lagu kala fiican yahay wax bixintu waa lagu kala fiican qofaan waxba bixin jirina wax ma bixiyo صح markii arrinta dhacday niyo aniga arrintan waxay soo gaartay 17 Oktoobar ayaan u maleynaa inay ahayd ma oo howlgelin oo dambiil ama jeeg ma qaadanin oo suuqyada ma aan wareegin sida caadadu ahayd waxaan isku dayay inaan istaraatiiji ka duwan qaabka ay wax u aruurinayaan reer America inaan sameeyo maadaama waxa la yiraahdaa farxiyo iyo deeq darajo iyo dalmar iyo cabdirashiid iyo reer America aad u dadaaleen runtii hodan iyo gabdho kale oo fanaaniin ah adigu qof walba uu dadaalay shaqo fiican ay qabteen inagana waxaan ku tuhmeynay jaaliyada ugu balaaran ee Soomaalida in Australia Mareykanka iyo UK ay ku nool yihiin ayaan aaminsaneen ismaba dhahayn waxba ay soo gaaraayo waxaan dhahaynay bal horta waxay aruuriyaan arka saasaan horta markii hore aan uga gaabsaday oo dhaqdhaqaaq u sameeynin markii aan arkay marka farxiyo 7 beri markay socoto ay tiraado 1,000 baa soo qabtay ama 500 ama wax saas oo kale waxay sirniyo 7 beri $1,000 lagu soo aruuriyo macna ma sameynaysa hadii waxaan lagu xilsaaray at least waxa sameeysaa wax ka duwan waxa ay sameynayaan walaalaha America saaxiibaha halkan oo aad aan isugu dhownahay oo ganacsatada baan la hadlay waxaan ku yiraahday gabadhaas walaasheena oo xanuunsan bal qaabka wax u sameyn lahayn aan sameeyno marka qoraal baan sameeyay list aan sameeyay warqada waxaan ku qoray 20 qof waxaan yiri 20 qof oo 300 isiisa ama 20 qof oo 500 isiisa at least lacag fiican noqonay ma haddana kida dadku maxaa la yiraahdaa biilo bay diraan oo lacagtaas meeli karaan bas markii dambe waxaan sameeyay kaarkan Cabdinaasir oo marketing ayaa laga yaabaa waxaan u jeedas fiican u jeeda waxaan u bixiyay cashay oo caawi walaasha magaciisa waxaa la yiraahdaa cashay oo caawi walaasha qofkana ma aragti in uu casheeyo xogaa xoolihiisa wax ka cuno wixii ka harana gabadha loo gudbiyo meel qurux badan oo soo bandhigi doona warbixinteeda universal ay ku jirtaa ayaan u qabtay oo u kireeyay 3 gabar iyo wiil aan saaxiibnahay Cabdi Cilmi la yiraahdo halkan garaash kule ayaa iga caawiyay waxay yiraahdeen niyo wixii habeenkii qarashka u baxay cashada maxaa la yiraahdaa anaga ku fargareynayna dadka wixii aad keeni kartid samay naaga marka saas markay bilaabatay laba gabar oo waxa jirta la kala yiraahdo Amal iyo Habiibo halkan degan aqoon isku maana lahayn maalintaas ayaan bartay way soo waceen waxay dheen maadaama niyo adiga Australia lagu xilsaaray waxaan jeclahay gabadhii inaan wax u aruurino xogaan waxbaan soo aruurinay markaas waxaan ku yiri isku kaayeen halkan hadda aan kala hadlay habeen ay wiraadeen niyo waa orodnay waxaan soo qabanay lacag waxay ii keeneen 600 oo qowrac u badan oo 5 shilin iyo 10 shilin iyo kumi iyo markaysa lacagaadu yar bay ahayd marka dollarka Australian ka hadlayna Soomaaliya dollarka Australia mar walba ka hadlayna adiga waa dollarka wadanka maalka aan ka hadlayna waa maalka Australia صح marka gabdhii markii ka lacagta xoog qaabkay oo ruusa kasta dhan baalan qaadanay oo dadka nagu rideen waxaan ku yiri gabdho fiican aad tihiin waa dadaaleysaan ka waran aan ku yiri hadii aan barnaamijkan aan dejiyay aad ka shaqeysaan oo kaarar inta idin siiyo oo asxaabtiina u geysaan oo noo casuuntaan bas arin fiican waayo bas kaararkii aan daabacnay lacag baan ku qornay oo leeyahay maxaa la yiraahdaa dadku ha ku casheen wax xarana gabadha loo imisa loo qoray Ibrahim sa loo qoray lacagta waxa ku qoran waa ku tusayaa $150 oo Australian $150 Australian dollar صح waxaan sameeynay 150 kaar ayaan sameeynay 150 kaar oo 150 Australian waxay noqon lahayd 22,500 oo dollarka Australian targetkeena saas waa aan isku dayay markii inaan dadka ka gadno oo aan kale adigana cashay wixii soo harna walaashaha loo gudbiyo dadka markaas diyaar bay ahaayeen kaararkii nus kamid ah gabdhaha u dhibay nusna ana qaaday bas waxa dhacday marka Cabdinaasir oo shakadu waxa fiican in la dhameystiro markii kaararkii aan daabacnay oo gabdhihii aan u dhibay maalinta kaararkaas aan sameynay jimce maalintii sabtida ana qarxi waxa dhacay oo zooba dhacay kaararkii gabdhihii ay qaadeen dadkii way u geeyeen nasiib wanaag waa loo qof baa 10 loo dhiibaa waxa la yiraahdaa asxaabtaada ku imaa qof 5 dadku markaas lacag kuma siinaan waxa ku leeyahay habeenkii markay amaada lacagta bixina ama maalin iblaahay iyo imaa bas gabdhihii
kaararka soo qaybiyeen anigana kaarar baan hayay oo 70 kaar baan hayay 70kii kaar aniga hayay waxaan dad u geeyay 20 kamid ah konton halkan ku hayaa ayuu bashqad ku jiraan waa sidoodii u soo marka meeqa idin gadmatay waqtigana waan ugu yar yahay baafa xoga yar boobsi meeqa gadmatay oo gabadha si loogu taakulay waxba kaarka lagama hadlaayo kaarka dadka markaa u geynay meeshiina waa kireynay waan diyaarinay marka dambe waxaa dhacday dadkii in habeenkii meesha 22 Oktoobar farxiyo waa isla hadalnay iyo dalmar waxaan ku yirinay anaga 22 Oktoobar aan dadka ballaminay in meesha noogu yimaadaan wixii meeshaas ka soo baxo ayaan aamina la wadaagayna hadii ilaahay yiraahdo qarxiya dhacay dadku waa iska taqaanaa dhibaato dhacday dad baa dadkooda laaday dad baa dad xataa qaar aan rabin inay wax bixiyaan xataa waxay yiraahdeen in anaga Soomaali qarx ka dhac ku darsanay markii gabadhaas ilaahay ma aragtay meel kale ugu saalo kulli xaal habeen meesha waxaa noo timid 26 qof 26 qof waa fahmi kartaa waa dad aad u yar hoolkii dan akreeyay 26 qof baa timid 26 qof baa iska cashaysay wixii cashada hara dadka take away bay u qaateen guriga u qaataan ku dhaanay cashadii waa la ku fargareeyay adiga lacag waxaa noo soo aroortay markaan isku daro guud ahaan intii oo asxaabta aanu ka qaadnay dadku de anigu sidaan ku sheegay asxaab baan dadka ka aruuriyay lacagta dadka ka qaadan imise noqotay lacagta marka Ibrahim lacagta gabar kaligeed oo halkan joogto oo Khatra Bashiir la yiraahdo aan jeclahay inaan magaceeda sheego ayaa kaligeed waxay keentay $2,500 oo ay soo aruurisay inta kalena gabdhihii ila shaqeeyay aniga ayaan dadka ka aruurinay dad publicana lagama qaadin lacagta inteeda badan asxaab baa laga qaaday asxaabta iska aruurisay meeqay noqotay marka waxay noqotay lacagta 9,130 oo Australian 8,000 iyo farxiyo tiri lacag badan tahay waa $9,130 weeye lacag isla habeenkaas ma wada hesheen Ibrahim isla habeenkaas ma wada hesheen lacagtaas gacanta ku dhigteen ilaa hadda 1,300 ayaa naga maqan oo 8,000 ayaan haynaa lacag dad baa ballan qaaday laakiin dad laga helayo waayo oo guarantee ka dhigay inay bixinayaan oo u baahan aan ku joojiyo marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka waa soo gaabinaynaa sababtoo ah xogaa codkiinana si fiican uma maqlo qof ayaa ii soo qoray dadku waxay marayaan 3,000 oo qof ayaa toos noo daawanaysa asxaabta qiimaha iyo qaayaha leh wallkayga waxaa saaran videogii uu ku soo jawaabay Abuukar Mahdi arrimihii dhacay iminkana Ibrahim Baafa insha Allah gabadhana ma aragtay gabadhana waa la hadli doonaa insha Allah Ibrahim marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo lacagtii lama soo gaar ma jirtaa lacagtaas in adiga iyo Abuukar ay istiraadeen adaan ku soo dirayaa gabadhii u gudbi ay ku heshiiseen inaad xawaalo dhigto ma jirtaa meesha ka keentay farxiyo ayada taqaano haddaan Abuukar lacagta u dhiibana qof xun uma aan dhiibin wuu mudan yahay inaan u dhiibo waayo ninka aamino noo sheegay jiradeeda Abuukar Mahdi buu ahaa Abuukar Mahdi aqoontaan u leeyahay 10 sano wada shaqeynayay inka badan waa nin aad u neceb xil inuu qaado haddaan iraado Abuukar lacagtan kugu soo qorayaa ما يوليه ما أقولنا أوكر ماذي نين أقول إنه العقد قفليه لودي بما هذه واتقنا وقالوا سلت جنتين أنا أقول شيء أنا ما أنا أوكر ماذي على العقد ديبو أو أنا رادني وأمين أوكي أنا أمين فينوس شيخ ظاهرنا فينوس شيخ ظاهر العقد ما كوض هذا الشيء أو ديبتي لودي بايا عد لودي بايا عندنا يمثل معامل هنا أنا أخفك أودي بلها يو سيدي آمين وكجار لي نيمد العقد وحواي إن قف لودي مهم معها أو مهمة إن قبضك عن هذا اللقي hooyaday baan u dhiibi karaa gabadha haddii lacagta Ibrahim la soo qaaday hadda kulay saa noo sheegtay weli qaar baa maqanayaa tiri lacagtii haddii la soo qaaday oo lacagtaana dee lacag adiga aad leedahay ma ahan Abuukar male ani male waxaa idinku soo aaminay qof inaad u gudbisaan ani haddaan ahaan la soo shaki ma geli lahayn lacagtii haddii xataa asbuuc ka badan gacanta lagu haayo 5,000 ama 6,000 dollar haddii aan la dhiibin أنا سو بدي كرر لعقت والجو آمنه هداي بتمادى موجود بيه محوه يساس شكل نقول لنا أنا ما ممكن قل لنا شكل حلوكو قل له مش الشرعية على وطن كأستراليا أما ميراها هذه الجوتيد واتقنا قابك العجاء الله دري وح حالة ده تهاي إن وح شكل هذا مجرو آمنه حتى دق العقتها وما قبته أفرت سديد بكون أما سجال بكون أنا هل كان أقول إنه أنا وح رادين إني آمنه بقول كوني صار شكتي إن بقولك كن صدّن هذا أمريكان يسوع أوريان إنجليز كوي لقى أورينا أوغانو نجوي عن قدرنا ثلاثة عن مرة بدي بيجروا العقد مركل السكودر وضرهان السكوجي ولا لو حد من أنكوهل قلنا بيه ما إن بقولك كن ضد الله شيء
haddii lacagta 20,000 ingiriis laga helo 30 maraykan laga helo 10 australia laga helo 60,000 waaye 60,000 40,000 saa isugu qori karnaa oo gabadhaan lacagta ugu dhamaystiri karnaa bay ahayd ujeedadu laakiin ma ahayn ujeedadu maxaa lacagta loo soo diri lahayahay maxaa lacagta hibil loogu dhiibay maxaa arrintu saas way ka weyneed aamina maanta okay gabadha waxay ka dhawaajisay oo ay tiri Ibrahim Baafa inkastoo waqtiga uu kala duwan yahay time difference uu jiro Australia iyo North America iyo Europe inay kula soo xiriirto maxaad ugu soo laaban weystay kula soo xiriirtay gabadha gabadha la soo xiriirtay waxaan ka hadlayaa kaba yare ma ima soo wicin kaba yare ima soo wicin miss call-keedana ma ana arag marna ima soo wicin halkan telefoonkaaga Facebook saaxiib ku tiri Ibrahim adi iyo kaba yare ما يعني كبير اسمه برا ولقين اسمه بارك وأصله هذا اللي أنا صاحب منه ولقين اسمه أركن ما كل من أقون أو دركسن ومليه لكن التلفون مرة بدل وقوة هذا اللي مريك كمركي جبت أنت أنا يكون جبتين والله اللي الضل مرة وحالله اللي هبين كي كدو في سمريك كوي آليس إنجليز كمان أبغين أنا كأني مفلو قريو صاحب منه هنا دور قفبة magaceeda been ku sameeyay waa ku wareeray marka midna igu ma jiro marka runta ku sheego okay marka hadii la isweydiiyo Ibrahim ana ku taan ku dhaway dalmar baan la hadlay waxa ku yiriniyo lacagii aad qabateen iyo wixii ingiriiska yaala iyo intii yarta aniga aan hayto isku geeyniyo ogaana wax dhiman aan u hawlgal markaas wuxuu igu yiriniyo farxiya caaw ingiriiska u socoto aaminana u tagi doonto lacagta qaarna qaaday inta dhimanna aamino loo duri doonaa marka adigana waxaad haysid niyo farxiya joogtee u dhiib marka waxaan ku yiri horta farxiya xagga markay tagta numberkayga waa kana damar waa maqlayaa numberkayga waa kana ay la soo xiriirto ay soo wacdo anaa ka codsaday inay soo wacdo ama numberkeeda ii soo tigsigara anaa raadinaa horta farxiya ma wada hadlin ayadana ma u dhiibi lahayn mar walba anay farxiya inta lacag aan u diro oo aan aamino u geey ma dhici lahayn anay lacagta qofkaan u dhiibi lahaa anaa qorshaysan lahaa dhib ma laha oo telefoonkeeda Ibrahim telefoonkeeda isii maxaa u tiri Ibrahim agar xagalo telefoonkeeda isii maxaa u tiri hadii aadan lacag u dhiibeynin oo horna u tiri saaxiib ma lihin ma follow garay waxna suma sheegno waxaan u dhahay telefoonkeeda isii in ayada aan la hadlo oo iraado walaalay adaa hadda London joogtid London ayada arintaas inay u tagtay ma umaleynayeen sida la ii sheegay Somali week bay u aaday waxaan rabay inay iraado walaalay aamina u tag waxa ayada goonihan ugu soo dhacay oo xawaaladooda ugu soo diray oo bangigeeda ku soo dhacay iyo inta Mareykanka haysan inta aniga aan haayo markii la isku geeyo ogow lacagta dhiman oo xaqiiqda noo soo sheeg intaas inaan dhaharay wax kale intaas dhaharay okay su'aasha meesha taala waxay tahay reer UK ee ahaan jirtay waa ka warqabtaa qaabka wax lagu shaqeeyaan arintan waadna maqashay eed ayaa lagu saaray oo waxa la yiri asaga iyo saaxiibkiisa tabcan Abuukar Mahdi saaxiib ayaa tihiin dadka waxa laga yaabaa qaarkood inay yiraahdaan baafo saaxiibkiisu difaacaya laakiin markii ugu horeeyay ee aad aragtay videogan oo gabadhan oo adiga iyo Abuukar Mahdi oo caaw yiri isma naqaano weligan isma arkin waa laga yaabaa inay isma qalnay ay inay soo fadhiisato meesha oo aad dusha idin ka saarto soo lama dhihi karo ciyaarta habeenkii maxaa loo timaadaan wax ku jira soo leeyahay kama shaki wax ma jiri karaan maya ma la shaki dar Cabdulqaadir waxa la isku qaldayaa farxiyo waxa ay la dagaalsan tahay shirkadda ama hay'adda Universal TV la yiraahdo dagaal baa ka dhaxeeya oo horeyba xurguf u dhaxmartay sida aan warka ku hayo oo muxuu ahaa dagaalkaas baafa niyo dagaal oo dhanka ay ku saabsan anay dhanka fanaaniintu waa liiga fiican yahay waxaas Abuukar Mahdi ayaa kaaga jawaabi kara hadii aad asiga waxa weeyaan dagaal baa ka dhaxeeya la yiri si dagaalkii ayada ugu dhaxeeyay Universal TV ay uga faa'iideysato ayaa laga yaabaa inay fursadan isugu dhax qasayso marka waa qaabdaro in gabar jiran tabaruc loo sameeyo dadkii hadda wax bixin lahaa ay gacantooda dib u ceshtaan oo shaki ay kala dhex geliso bulshadii iyo gabadhii wax la siinaa horta aniga taas ilama qurxooneen farxiyo waxay ka mid tahay dadka isxilqaamay inay wax aruuriyaan hadday wax aruurisay wax ay samaysay oo ay daasho tiraan intaana aruuriyay inay isaga fadhiisato banaanka ka istaagtay dadka kale wax aruurinayna aysan qasin maanta aaminin 100,000 loo arooriyo waxa ka fiicneed in qof Soomaali ah anaga naga mid ah intuu isxilqaamo yiraahdo ana kalideeda u bixinay waa ogtahay Ingiriiska nin cadaana gabar Soomaaliya maskiina ardayada kalidiis u saaray maanta waxay inaan ka fikirno sidii kili gabadhaas aan ugu saari lahayn ma ahan inaan maanta iska qabsi iyo hadal okay Ibrahim baafo waxa ka dhawaajisay oo aad tiri gabadhan iyadoo maaragtay wax
caddayn aan naga hayn ayay maaragtay waxay nagu eeday ani iyo abukar oo nala soo xiriirin saa igu tiri intaan barnaamijka samayn laakiin hadda adigana waxaan kaa maqlay oo aad tiri waxaan maqlay ayaa tiri in universal tv ay la dagaalsan tahay saas awgeeda ay ugu soo gabatay arrintaas maxaa xaqiijin ah oo adiga haysaa oo farxiyo aad ku leedahay farxiyo dagaalka maahan lacagtee universal dagaalkan aad kula jirtid ayaa aniga iyo abukar maadin soo gelisay maxaa caddeena haysaa waxa caddeynaya universal inaysan isku fiicneen waxaa caddeyn ugu filan dadka daawada telefishinka fanaaniin badan ayaa heesooda laga soo daayaa waraysyadooda laga soo daayaa deeq darajo maraykanka ku joogaa fanaaniin badan buu waraystaa weli ani ma arag universal tv oo farxi kabeera laga waraysanaya taas number 1 waa xaqiiqday ka mid tahay number 2 xaqiiqda ma ahan aan ka dhex galo marka aan ka dhex galo waraysigii aan ka dhex galo raalliha waraysigii deeq darajo wuxuu yiri gabadhaas tv-na looma diidin fursad lama helin dad badan oo aan la waraysanin ayaa jira tv ka jira marka taas asaa xaqiijiyey laakiin hadda arrintu waxay taallaa maba ahan aamina ma ka tagtay oo ma dagaal hoose waxaad naga qarinaysa ma jira oo aan doonin asxaabteena u sheegtid dagaalka hoose aniga horta waxaan jeclahay sideedaba wixii aan maqlay anigu cidina ma jaaj garayn karo wax ani aan hubinna inaan sheego ma jecli fudeed waa sheegtay ibrahim waa sheegtay laakiin ya waa sheegtay gabadhoon joogin ayaa hadda sheegto tiri sababta ay waxaan u samaynaysa waa dagaal iyada university ka dhaxeeya university dad badan ayaa la dagaalsan waana la ogyahay qaabka u shaqaysaan waxaad samaysaan qof walba la ogyahay laakiin adaa jaaj gareeyay dagaalka oo aan maqlay oo university ayada kala dhaxay miyaa rabtaa inaan kuu sheego ha waxaa laigu yidhi marka hadduu dagaalkaas yahay sanadka ma xasuuso habeen happy new year jiray oo barnaamijka happy new yearka la yidhaahdo lagu baansanaa stuudiya xamar inuu ahaa u malaynaa weliba sida la ii sheegay oo farxiyo lagu casuumay oo lagu martaqaado la yiri barnaamijkaas aan idinkala qayb galaa tiri oo kursigeeda la diyaariyay oo inay fadhiisatay rabtay ayaa waxaa la ii sheegay inay ka soo dhex muuqatay tv kale iyadoo live fadhido oo marka meesha ay ku dagaaleen wax dagaal waxaan maqlay marka gabadha marka tv kale oo ay u tagtay ayaa reer universal aad dagaal u qaadeen oo aad kaga arsanaysaan miya ma adi dadkaas ku darin aniga qaybtan oo fanaaniinta ani shaqo ku mali waan ku sheegay anigu fanaaniinta qaybta fanaaniinta waa liiga fiican yahay qof baa iskala inaad ka wareystid hadda meesha cabdinaasiro waxaan rabnaa 3900 aan fiirsanaysa waxaan rabnaa wax positive oo dadkan ay ka faa'iidi karaan inaynu ka hadalno hadda gabadhii inaan difaacno waa laakiin baafa inta ma joogto mogta iyadii inaan difaacno oo aan idhaahno positive waa samayn laakiin waxaan inaan soo afjarnaa rabna idan aan wareysano mogta mama fiiri aniga ma eedeynayo farxi gabar walaashay waaye gabdhuhuna aniga agteeda darajay ku leeyihiin qiimo way dhaleen maasha allah waan qabaa weligay lagama yaabo in aan dumar aan u gafo farxiyo waa gabar walaashay aan jecelahay oo aad u fiican waxa laga yaabaa qaabkan arrimahan ay u samaysay haddii ay ka tahay faraska si uu u ordo in karbaash ugu dhuftana waa goonigeeda laakiin haddii ay ka tahay xifaaltanka la dhaxeeya dagaal universal oo kala dhaxeeya waa arrin aad u xun laakiin haddii ay daacad ka tahay waxa ay samaynayso waa arrin fiican haddii isla xisaabtanka noocan oo kale ay ku fiican tahayba oo ay jeceshahay inay daba gasho waxyaabahan oo kale anigu waxaanba dhihi lahaa dowladda soomaaliya aan ka codsan lahaa inay shaqo siiyaan farxiyo kabeere oo ay daba gasho wasiiradan iyo dadkaan la leeyahay lacagay luusadaan maalin walba iyo okay ibrahim waa mahadsan tahay abukar mahdi waa kasi karnaa oo fanaaniinta ku dhex jira laakiin adiga ibrahim fanaaniinta shaqo kuma lihid dad kale ayaa jira tv ka shaqeeya universal oo magacyadooda la yaqaano oo aan rabin inaan halka ka sheego dadkaas maxaa loo abbaari waayey adiga iyo saaxiibka kaliya loo soo ataagareeyey iyo maama faynus maama faynus runtii haddii loo hadlo xoogaa sida ay ugu adkaysay adiga iyo abukar mahdi uguma adkayno waxay tiri kulley wixii agteeda yaa lagama weynaayo waxaa kaloo ay ka dhawaajisay oo ay tiri lacagihii london laga aruuriyey oo gacanta loo gelinayo hebel iyo maamada iyo abukar mahdi taas kule adima ogid oo wax laga duubay maxaa loo soo halkay ku dambeeyeen dad shirkado laakiin shirkadu waxay ku dambeynaysaa kulley idan waa wareysanaynaa fursadaan siinaynaa waa la xiriiray farxiyo fursadaan siinaynaa laakiin aniga waxaan rabaa lacagtan 9,000 iyadana ay sheegtay oo wax kale aan raacsanayn ugu horeyn goormaan soo dhiibaysaa oo gabadhaan soo gaarsiinaysaa yaan u soo dhiibaysaa cabdinaasiro lacagta anaa soo dhiibaaye inay farxiyo ay tiraahdo 24 saac ka yaraan baafa u qabtay inuu lacagta ku soo diro ayaan daro waayo waa ka xumahay
meesha maxkamadeen ma taalo iyo gabadhii lacagta loo aruuriyay aniga ma wada hadlin weligeedii ma soo wicin anna ma wicin maanta hadday wax tabanayso aamina dhool ayadaa tvda inta soo fadhiista ama facebook gasho waa lay dhacay lacag baa laga qaatay waxbay dhihi lahayd waa ka xumahay waa miskiin dhibban marka gabadhaas wixii loo qabanaya dadka waxaan ugu baaqayaa still inay u qabtaan ay u sameeyaan meeshay usoo marinayaan ay u mariyaan lacagta ay ka hadlayaan 8,000 Australia ani mushaarkaygu hal maalin hal bil mushaarkayga inta isqadiyaan siin karaa aamina dhool waan awoodaa aan bixin karaa marka lacag yar waay waxay ka hadlaysaa sababta aniga iyo abuukar ay u farmuuqdeen waxa weeye waa dadka wax aruuriyo waay dad badan la magacaabay maxamed caabiya la magacaabay salmaan la magacaabay waxa ma aysan aruurinin laakiin dadkii wax aruuriyay waay dadkii wax ku tuumayso ilaada hala soo dir laakiin farciyo waxay habi ku ahayd lacagta aniga aan ahay inaan ayada gacanta u geliyo markaas ay qaado ay tiraahdo baafa lacagtaan soo diray aniga sharaf waxa ay yahay qof universal tv u shaqeeyo lacagta inuu qaado aamino u geeyo taas aan ku kalsoonahay waayo ani tuhunka ka sokow ibrahim tuhunka ka sokow waxa ayaamahan ugu dambeeya la isku hoos wadaa oo la leeyahay dad fanaaniin kale oo ma aragtay qoto oo saaxiibka abukar mahdi uu sameynayay oo noqday one of the most successful noqday ugu fiican oo laga soo daayay show oo ka dhaca in dad la shaqeyn waayay abukar oo ay kala dhaqaaqeen ay erayadan cusub ee Soomaaliga jambal ay tuureen gabadhan oo Mareykan ka timid jambal loo tuuray arintaas ma maqashay hadaa maqashayna ma dhici kartaa ma jirtaa sheekadaba gabadhan miskiinta ah ee walaasheena ay xanuunsan inay kasii weyn tahay oo arimihii Soomaalida ee xildhibaanada wasiirada iyo balaayo walba Soomaali lagu arkay inay meesha ka socoto maymo waxba kala ma socdo arimahaas barnaamijka qoto ani lama socdo ma daawado wax aan kaaga sheegi kara arintaas ay igu weydiisay Cabdiraasir oo ma jirto waa ka xumahay waxba kala ma socdo dhinacaas okay marka midaan raba hadda farxiyo ma waxaad leedahay caddaynkan inaa isoo wacday in lacagtaan aniga abukar aan ka wada hadalnay inaan hoos iga dhiibno iyo maamada haddii meesha lagu soo daro mise waxaad leedahay waa gabar waan xishoonayaa lacagtii aan soo dhiibayaa waana ishubaa ima soo wicin farxiyo hadday soo wacdo miskoolkeedu waa arki lahaa waxaan hubaa 100% inaysan soo wicin hadday number qaldan wacday ma ogi facebook aniga magacayga dhowr qof ku samaystay mid gooni hadday wacday ma ogi aniga farxiyo ma wada hadlin mana hadda dhahay waxa ay soo wiciyay in aniga ay wada hadalno oo arin ku saabsan aamin dool aan maanta aan isku haysano ma jirto waa gabar walaashii aan jecelahay farxiyo kaba yare waxaan leeyahay dadaal baad wadaa hadda sii wadaysid sii wad haddaad meesha ku joojinaysidna dadka kale fursad sii ee rabo walaashooda inay caawiyaan iska dhaaf wadan dhan baa 27 sano is aaminaad la'aan nooga maqan ilaahay wadankeena loo hagaajiyo hawsha ha socoto lacagtaan aamin dool sida ugu dhaqsiyaha badan waa u soo diraya aniga naftarkayga nin safara baan ahay meel u socdo anaaba sii hayn karin waxaan u haayay kaliya laba arrimood waay haddaan kuu sheegayaa kow wadankan Australiaanka waa Google garan kartaa dollarkiisa iyo ka Mareykanka isku mid ma aha uu dhacsan yahay maalin uu ficnaadaa maalin uu hagaagaa markii la sarifo oo la sii diraayo waxa laga yaabaa 9,000 oo Australiaanka ah inay noqoto 6,000 oo Mareykan waxa laga yaabaa maanta 6,000 oo Mareykan inay noqoto laakiin bari inay noqoto 8,000 oo Mareykan uu kaco waxa laga yaabaa dad kale oo aan rabin inaan la hadlo maadaama arintii soo dhaxgashay waxaan isdhahay aniga Ibrahim ahaan sharaf ii ahayd lacag gaaraysa 10,000 oo dollar oo Mareykanka lacag u dhiganta inaan lacagtan gaarsiiyo qorshahaygu ahaa taasna waxa iga xigtay 4,000 oo Australian oo dad aan rabin inaan ka soo qaado aan rabin inaan u tago asdaab at least 10,000 oo dollar oo Mareykan baa ka timid Australia in la yiraahdo lacagtaana ma aha lacag dad badan laga soo qaaday shakhsiyaad oo fara ku tirsan oo aniga aan aqaano oo gabdhihii ila socday yaqaanaan baa laga soo qaaday maanta bulshada Australia haddaan u dhaxgalay 100,000 oo dollar oo Mareykan halkan laga qaban Australia wadan wadan weeye oo dadkeedu lacag haystaan oo nolol fiican ku nool yihiin oo recession ku dhicin wadanka oo dadkooda shaqeystaan qof halkan okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo intaan soo xirin haddii reer Australia tabcan 4,000 oo qofood ayaa daawanaysa hadday ka badan reer Australia hadday maqlayaan oo ay yiraahdaan lacag ka fara badan ayaa loo dhiibay oo caddayn la idinku keeno oo anagana aan soo bandhigno maxaa samayn doontaa Ibrahim Baf
ما بهليسيد waxaas aad sheegaysid wax u dhow meeshan kama jirto shakiga oo meelaha la wareegayo anigu qofkaan ahay dadku way yaqaanaan annagoo isku kalsoonahay meesha waxa la rabaa qofku inuu horta isku kalsoon yahay rabaa wallana uu ka baqo lacag qof miskiina loo dhiibay ninkii lunsada asay dhibaysaa qofkii dhiibayna sadaqay u tahay wuu niyeystay ninkii lunsada un baa ka sii daran dad badan lagu eedeeyaa lacagaha lunsada ani weligay qof aan sadaqa u dhiibay qofka ugu dhiibay waxa uu gaarsiin weysay waxa loo siin waayay ma dhaw ani sadaqada jaabkayga way ka baxday qofkii aan u niyeystay aan u dareena waan u dareemay salaam wax kala hadal ma jiro meeshaan ma taalo in la qabsado iyo hadal xumo tashuush waxaan rabaa inaan ku weydiiyo TV-ga tabcan dad badan ayaa fiirsada waa TV-ga ugu horeeyay dad badan taageerayaal uma ahan qaabkay u shaqeeyaan iyo siday yihiin iyo tabcan boqolkiiba boqol lama dhihi karo taageeraydan yihiin waxaan aan ku aragnaa social media dadka asxaabtii la ah ee followerska aan ku arko in haddii loo eego oo runta loo hadlo farxiyo waxay tiri intooda badan maybe hadda waxa laga yaabaa in ra'yigooda isbedelay laakiin intii adiga iyo deeq darajo aan waraystay iyo abuukar aan soo gelay laakiin intooda badan waxayba leeyihiin erey waxay isticmaalayaan universal waa tuugo universal waa saan marka ma la dhihi karaa meesha ani kugu eedayn maayo baafa ahaan waan isnaqaanaa qof daacad inaad tahay abuukar saas oo kale maamada saas oo kale laakiin ma jirta dad idinka mid ah oo universal ah oo sida adiga iyo maamada iyo abuukar daacad u yihiin deeq darajad kale inaysan daacad u ahayn ma jiraan anigu marna bubacayna universal waxna kama sheegaya mana dhaliilaayo waayo ay ma ahan aniga ibrahim ay ma ahan waa su'aal aniga shaqaalaha universal aan kamid ahay meel aan ka shaqeynayo wax kama sheegi karo hadday xun yihiin anaa ka tagi lahay marka boqolkiiba boqol ma xumo universal Soomaa aad iyo aad u fiican yihiin waa telefishin fiican oo Soomaaliyeed dhexdhexaada dadku ay jecel yihiin oo dadku ay daawadaan adiga ka soo shaqeeyay waa la soo shaqeysay muddo ka soo shaqeysay anigu meel aan ka shaqeeyo waxba kama sheegi kara daliil way yeelan kara of course qofka madaxda ah oo mas'uul noqday ama company le maanta oo dhan waa lagu eedeynaya daliisha waa mar walba wax socdo qaad amaan heli maysid haddaad mas'uul haddaad noqotid amaan maanta oo dhan meelaysid controversial uu iska jiraa waxaasna waa wax iska minor waaye dad baa yiraahda waa universal waa balaayo loo baahan yahay oo ku qasbi inay fiirsadaan magaalada waxay ka sheegaan inay la dagaalsiin guriga marka uu tagtid asaga waxaan ahayn ma daawan marka waa ayadana waa waxay ka mid tahay propagandada oo meelaha isaga jirta dib ma laha TV-ga waa la eedeyn karaa ani iskama lihi TV-ga shaqaalo ma ahay arrimaha ku saabsan maamulka ay ku fiicanta inay weydiiso laakiin waxaan ku sheegayaa ugu dambeyntii adoo mahadsan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh iminka soo gaaray 4500 gaaraya markii uu dhamaado waxaan ku soo xijinayaa videogii maama Faynuus Sheekh Daahir oo iyadana isku difaacaysa waxaana la xiriir la sameeyay farxiya kabayare weli ma soo jawaabin laakiin waxaan isku dayay inaan raadiyo aan soo helo iyadana maaragtay dhankeeda isku difaacdo ugu dambeyntii maxaa fariin u faraysaa farxiya hadday ku daawanayso farxiya waa gabar walaasheeda oo jecelahay oo iga weyn baayidee waaye waxaan leeyahay waa maasan tahay shaqo fiican qabatay shaqadii haddaad ka daashina ka fadhiiso haddaad weli appetite u haysidna wad gur lacagta walaasha caawi aamina dool si daacada u caawi oo ku dad badan laqdabo iyo xifaaltan iyo dad jeclaysi hawsha ha socoto aniga waan wadayaa hadda TV anaga aroor oo tahay reer Australia waxa laga yaabaa in hadda ay ku mashquulsan yihiin ilmaha iskuulka la geeyay waa 8 aroornimo ku dhow waaye aniga xitaa hadda ilayga aan iskuul geeyo marka iyagoo firfircooni un bay ka qaadayaan waxaan rajeynayaa reer Australia hadday daawadaan videogan lacag 9,000 aan hayno inaad ka badisaan oo lacag badan ay timaado si gabadha walaasheena aan u caawino abuukar iyo maama Faynuus maxaa u faraysaa abuukar iyo maama Faynuus waa dadaaleen qeyr Allah siiyo maama Faynuus waa wada hadalay maama aan xishmeeyo waaye aad u fiican farxiyana maama Faynuus I think inay waxba ka sheegin oo inay dhaliilin laakiin waxaysan la soo fadhiisto waxay tiri maama Faynuus baa London markaa looga dhigay wax looga dhigay lacagihiina waa laga duubay lama soo deen marka xoogaa waxaan maqli jiray aan ku dhameynayaa shakadeeda sadaqa midig markaad ku dhiibayso biixdaada iyo arkin hadda waxaad tiri midig ku dhiib muuqaal la soo duub marka waa wadayna ayadana dhib mala isaaminadii dhamaatay oo aamin way noqotay
وما سنتهي هذا وما سنتهي إبراهيم باف وما سنتهي مركا أصحابته صار إنك قبلن قاضي طبعا وما غلي فرحية فيديو ويصوت دوبتي وأنا رجني وح أي كو إيده بيرات ما ماذا مجلس تاسوا إن حقيقنا وإن شكنا إن كسر ما قاعد ماشي كسر بحي وقف شرف مدن لكن كسر مالنا الديوان نقناي ما موين كي قبله لقى ما هالله لكن لقى معصوبة يا صباحي مركا أرنت ميل أيرسل جاري لكن تن هو مهم سن واحد تاي قبضان ولا شيء أنا مساكين أو حنونسن أو أدي رأي في عنا كنت أو ما أنت كلي حتى لسين كرو وحلو سمين كرو إن شيء كذا يبى لقد دكتي فوتبول كرو عيارة لقد دكتي تاس واحد نقول سعرين الفورمون عبد الناصر وحان أنا جعل هاي ضد بدن الصومالية في عنا يهجرة وما أنت جعل إن كلي وبحيان ورقبضنا إن كلي لو بحيو هل جود ذا إن بقولكم لا أروري العجير بهذا ما أنت الجودة وين لها تشويش يا الجلين وحلصين هاي يوحلوا دراي هل هو مشغول ورجعنا السدان وعاونا أو أي حنون كذا ولقب سنة كل بالله بحين كرانا من سنة هاي إن كل لوب هي أيام سوجي دين لاينا كده دال ما أنت شلنكي آمن الصين لها إن لقاها الله اللي رادو محل هذا نكام حول عكس سودر واي كان العجيب هاي عدين هكذا واي عدين ماشي مرقاتي محكمة دي مطار آمن الدول أيضا جعلان لنا ورئيستي أوتر هذه ماما محاك سو جاري محاك هاد من أنضت كوي دينا بيئة أنت أنا تقدر أو كريو رجعنا إذن كان سو ذي لكن دي ما إن شاء الله واسكت دينا waxaan kaloo idin sheegayaa insha Allah haddii alla yiraahdo baafa cuntuunu ku rucunaya saak waragtaan waa astaamaha qorax joogtinimada iska ilaali live ayaa ku jirta solarportal.com waxaan idin sheegayaa saaxiibkay Salman Jamal oo ku sugan magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga wuxuu yiri aniga lacag ma aroorinin xayeysiinayaan u sameeyay shilin liira ma qaadin wax kale ma aanan sameeynin taasna waxaan qiijinayaa waxaan isku dayayaa fanaankiina reer Birmingham oo isna ka qayb galay qaalidiyare inaan isagana aan wareysto si wax walba loo xaqiijiyo ruma waa la cadeeyaa sheegayaa hay dadku inay isdiraraan inay isqabsadaan inay xigtaan lama rabo adduunkan labada qof oo isfahmaysa xataa waxa fiican inay shahwada cabi karaan aniga hadda dad baa u arko inaan farxiyo ma dareerin waxbay soo duubtay adaa hadda igu qasbay inaan ila hadashid ma ahane aniga weligay uma jawaabi lahayn markee waxaan uga jawaabo ma aqaan waayo eed ani aan lahayn bay iska soo jeesay lacagta waxa u soo dir weysan lahayd fariinteeda okay waayahay lacagta waan dir lahaa mar walbo sababta u hayna sarifkaas iyo intii yarada oo dhibneedii inaan iraado kabadi intaas ma ahane waxa damcina lacagta maanta aamin u xayran oo jarmalka loogu qaadi lahaa inta yarta ma way ku xisaabtamaysaa inta u taalaani waana u sheegay TV-gaana ka sheegabeen Faynus Sheekh Daahir oo fadhido barnaamij live baa laga soo wacay waxaan ku yiri 9110 baan haynaa waxaan rajaynaynaa inaan ka badino oo maasantahay okay baafo iska quraaco mooskaaga iska cun moos iyo shaah isku cun waa arin cajiib ah waa maasan tahay asxaabta qiimaha iyo qaayaha leh cabdinaasir aamino sidaan ku caawin lahayn weli arinteeda ma dhammaanin walaalo adiga ku dadaal farxiyaha ku dadaasho insha Allah qaalidina ku dadaalo maamfinusa ku dadaasho arintan isqa qabsiga iyo bulshada Soomaaliyeed in la marin habaabi hal joojiyo raggu ha wada shaqeeyaan dumarku ha wada shaqeeyaan gabadha sidii loo caawin lahaa waddanka dhan ayaan dhisi karnaa haddii aan is caawin insha Allah waa mahadsan tahay Ibrahim waqtiga ayaa nagu dhamaaday dhammaan asxaabta qiimaha iyo qaayaha leh waan idin mahadcelinayaa gabadhan ha la caawino gacan ha la siiyo wixii loo awoodo qofkii kale xataa u awoodo ha siiyo kelida waa la siiyay soo sheegay gabar oo bariga London school ka dhigataan in cadaan oo xataa aan isku diinayn ayaa siiyay marka arintan hal la dajiyo waxaan isku dayayaa farxiyo inaan helo aan wareysto laakiin arintan hadii laga sal gaaro la soo helo insha Allah waan soo bandhigaynaa waxaana ku xiga video-gan markuu dhamaado maamada Faynus Sheekh Daahir oo iyadana hadlaysa ayaa ku xigta intaan aad kulmi doono aniga iyo baafa oo moos iyo shaah isku cabaya oo ku sugan magaalada Melbourne ee waddanka Australia waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فيديوغي ayaa ku dhigay marka baafo hashdeen inaan istaagaan diidaya ama moos aan xataa moos iyala marka waa ka cudur daaranaynaa فيديوغي ayaa ku dhigay laakiin waan istaajinayna insha Allah waxaan ka gelayaa telefoon kale aan gelayaa marka baafo waan ku salaamayaa saaxiib aad ayaad u mahadsan tahay waxaan ka gelayaa telefoon
تليفون كلام كقلي مركا وأنا استأجينيا وأنا محصنت هاي وحن كلية هاي مالي ونكسر يان كلية هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته